Dunidu idil siday u badan tahay afar xilli ayay Soomaalida sanadku u qaybiyeen. Waa gu, waa xagaa, waa dayri diraac. Guga dayrto kaliya ayaa roobku ugu waxtarka roon ee ka daa cirka laga sugaa. Inkastoo ay yihiin kuwo aan sidaa u badnayn, sidaa daraaddeedna aan isku halayn lahaynoo waayana la helo waayaha kalena baaqsada. Taasina waa sababaha ay biyuhu dalku ugu yaryihiin ee daaquna gabaabsi u noqdo. Waa isla sababaha ay abaaruhu u soo noqnoqdaan oo kolkii waa la joogaba xoolaha iyo dadkuba ay u baaba'aan. Taariikhda Soomaalida waxaa lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro baan oo xilliyo kala duwan dalka soo maray sida Haariya, Haaraamacuna, Hawaara, Gaadaweyn, Hargacuna, Mugweyn, abaartii dabadheer, Baastaale iyo qaar kale. Xagga sayniska ee culunta deegaanka marka laga eego, waxaa jira sababo ay u tiriyaan kuwaasoo xaalufku dhulku ugu yahay siday sheegaan. Hase ahaatee waxaa jirta fikrad taa ka duwan oo ay qabaan ummadaha diinta Islaamka rumaysan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Waxay aaminsan yihiin habka weebaweyne addoomihiisa aadanaha u ciqaabo marka ay ka leexdaan waddadii u jeexay ee waxyaabihii uu fartoomi waayeen, kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayeen. Sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusana, cirka oo dhibcihiisa lagu ceshaa waa ciqaab eebe. Dhulka oo caws iyo miro dhali waaya waa ciqaab eebe. Xoolaha iyo dadkoo gaasirmana waa ciqaab eebe. Abaartuna waa ciqaab eebe meel kale ha ka dun. Waa sheeko mahadho reebtay, waa sheeko fooda laystaray, waa sheeko laysku garnaqsaday, waa sheeko gabay lagu waariyey. Sheeko ku saabsan sida mararka qaarkood abaartu isaga hor keento xubnaha qoyska. Abaartii dabadheer waxay taariikhda Soomaalida ugu tiirsan tahay kuwii ugu daraa. Inkastoo ay ahayd abaar qoysas badani ay dhibaatooyin ka muteen, haddana waxaa jiray laba arrimood oo ay kaga duwaneed kagana rooneyd kuwii ka horreeyey. Waa ta koowaadee waxay ku soo beegantay xilli uu dalku lahaa dowlad xilkeedu ka mid ahaa badbaadinta iyo daryeelka ummadda ay maamulkii muquuraadka u haysay. Talabaadina waxay ahayd abaartii dabadheer oo dhacday bilowgii 1970kii. Waxay ahayd waayo xidhiidhka caalamigihii uu aad isu bedelay. Farsamooyinkii isgaarsiinta isu warhayntu xilli ay meel sare gaadhay. U gurmashada kolba qoladii tabaalooda goor waajib laysaga dhigayo gargaarka aadanaha ku salaysan uu noqday xaq midii tabaalaysan ee ay ku leedahay kuwa wax uga tari kara. Labadaasiba inkastoo abaartii aysan hor joogsanin, haddana waxay yareeyeen wixii waxyeelo ahaa ee ay geysan lahayd haddii aysan jireen. Si kastaba ha ahaatee, howlaha xukuumaddii xilligaasi ay shacabka ku badbaadinaysay waxaa ugu weynaa daadgurayntii baaxadda lahayd oo qoysas aad iyo aad u fara badan oo reer miyiha looga soo raray deegaanadii ay degi jireen ee ay abaartu leeftay. Siday weli dad qaarkii xusuusan yihiin, daadgurayntaasi waxay ahayd mid loo sinaa oo cadaalad ku dhacday. Waxaa jirtay bartilmaameedyo dadkii tabaalaysnaa loo sheegayoo markay ku soo ururaan diyaarada lagaga qaadi jiray. Hase ahaatee, hayaankii badbaadinta looga gol ahaa dadkoo idilma wada guddoonsan umana wada fududaan. Waxaa jiray rag aan weli cirka ka quusan ama xaalufba ha ahaadee dhulkii ay weligood yaqiineen
inay ka barabaxaan ku dhici kari waaye dabadeedna halkooda qallaha iyo qadarteeba ku sugay. abaarba ha noqdee dhulkii ay yaqiineen raggii haddaba ka foqi waaye waxaa ka mid ahaa jaamac xasan shirwac oo jaamac dayuurad loo yaqiin. wuxuu ahaa gabyaa tiixa halqabsi leh tirin jiray. abaartii dabadheer nin ay si xun u saamaysay ayuu ahaa, kaasoo markii dambe xubnaha qoyskiisa qaarkood iska hor keentay, isaga iyo afadiisana fooddi isku gelisay. gurmadkii dowladda iyo hayaankii badbaadinta markii uu ka wahsaday, rabbina uu ceshaday deeqdiisii uu cirka ka keeni jiray oo ay daruur biyaysani muuqan weyday, ayay reer jaamac naftii isugu timid. cad iyo caanaba way ka quusteen. xoolihii ay haysteenna markay sabada aqalka iyo agaarhka xeryaha ay ku wada laadeen bay xubnihii reerka su-aalo dib isugu noqdeen. waa la istuhunsaday. waxay isweydiiyeen tolowya ugu wacan oo reer jaamac dacdaradan baday deehaalka ay qabaanna ku jirabay. dabadeedna wax la wadaba wixii eed ahaa oo idil ayaa odaygii reerka dhabarka loo saaray. dhibaatada reerka ku dhacday ayaa loo sabeeyey. waxaase ugu darayd haweeneydii u dhexday oo qabay oo jinnigii isha caddaa ka necbaatay. waagii baryaba way haaraantaa, qoraxdii dhacdaba way habaartaa. waxaa ka dhaadhici weyday keeda mooye nin ragoo idili inuu badbaadinta reerkiisa u suxulduubay. waxay aamintay keeda mooye nin ragoo idili inuu u guntaday daryeelka xoolihiisa. keeda mooye nin ragoo idili inuu naagtiisa maqlo lana tashado. nina reerkiisa wanaagga kama hagradee naahiblaay odayga haaraanka ka daa markii lagu waaniyana waxay odhan jirtay, ninkani hadduu reerkani dan iyo daarad ka leeyahay wax kaleba yeelkoodee gurmadkii daadguraynta dowladda muxuu inoogu reebay, muxuu cidlada inoogu guddoonshay. indhaha markay saartaba ereyo kulkulul oo aan naxariis lahayn oo dhaga ku hadal iyo quudh simiirana ayay roobka kaga dhigtaa. ardaageeda kolkii uu fiidkii soo galana milif yar bay intay meel ugu tuurto kub ka durugsan iswadhaa. haddii uu awoodo damco inuu u galmoodana intay dhabarka u jeediso ayay laad isaga fogaysaa. eedaheeda tirada badan inuu iska daafaco kolkuu isku dayana ileen waa naagoo way ka hadal badisaa. hadduu isku dayo inuu canaantana oohin iyo baroor bay kala hor timaadaa. kolkaas buu foolkeedaba ka dhaqaaqaa. muddo haddii ay sidaa ula dhaqmaysay ayuu jaamac dhab ugu cadhooday. wuxuu naftiisa la shooraba waxay talo kaga dhammaatay mar dambe inuusan gabbane uu naagtiis ka celiyo. xaggee buu wax ka bilaabaa? isaga unbuu ku ceelbixi karaaye allailehe ha gabyo. nin reer mudug buu ahaaye ha tiriyo gabay mudug, gaalkacayo, garawe, caabud waaq ilaa iyo bandarbayla gaadha oo dhagaha loo raariciyo oo qofkii maqlaba uu madax u ruuxo isagana uu ku garnaqsado. wuxuu yidhi, naahooy codkaad xali lahayd waa cilmi lahaane carre edeg wax wada saabtay baad ka calminaysaaye caleen joogle lama haystee caano dhamitoode. nin walba ciyaalku dhaluu la calowsaadaaye cishadaad qadaad baadii oran cawra waysagee cindallaahi waxa nooga yimid haygu caasiine maanaa cirkaantiila curashada u diiday.
dhulka cawska maanaa ka jaray coodka lagu foofsho maanaa adhiga caatada ka dhigay caana laga waayey cadan iyo berbera maanaa celiyey beecooda maanaa cadaan iyo madow wada culeysiiyey calaaqaadka maanaa u jaray dunida circirtay maanaa cidhiiri ka dhigay caayishkii soorta maanaa ceelashii wada qufulay ciriiqa baasiinka maanaa kufriga caasiga kaga abaadsiiyey carab iyo yahuud maanaa ciidamada lahay cali yuusuf maanaa qabtay caajilkii boqorka caadi namruud maanaa caydhshay labadiiba maanaa dharkeeni caddaa calalguduud dhaafshay cadrad gabadha maanaa gambada caada uga yeelay maanaa dowladdeeni casilay caajil noqon weyday cududeeyo maanaa siyaad ciidanka u dhiibay caynaankahay maanaa caalam maqashiyey maanaa ciddiini tolkaa kaa casabadgooyey cunno maanaa kaa qadjay oo eega kugu dhuujay caqli naaqis maanaa ka dhigay adiga caynkaaga cusriba dhacay soo yusriga kama cirdhowrno waxyeelooyinka baan ee dadkii deegaanka ay ku qabato ka sokow abaartu marar badan waxay foodi isku gelisaa qaar ka mid a xubnaha uu qoysku ka kooban yahay saygii ooridiisa ayay muramo ka dhex haloostaa mararka kalena isaga iyo inamaduu dhalay ayay kala dishaa biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxa isna yaraada nacfigii xoolaha lagu qabay ee dadka ku noolaa geela lo-da iyo adhiguba way gabloolaan cid wax laga maashaa ma jirto karimo idil oo fadhiyo lo-aad iyo tirooyin adhi ah oo xeryaha ka buuxa ayaa laga dhex waayaa neef la qasho oo hilbihiisa loo hawoodo kadib ayuu noqdaa nin hodan iyo sabool mar qura wada ah kolkaasna dulqaadka ayaa yaraada xilligaasoo kale dadaal dheeraad ah ayay qoysaska raacatada isku guubaabiyaan xilkaasna guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska dhammaantood gaar ahaan intooda waayeelka markaase hoos loogu daadego walwalka ugu weyni qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga reerka nagaasho sahan geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go-aansadaa hase ahaatee meelmarinta xilkaasi ruuxa kale oo uusan marnaba uga maarmi karin waa oorida naagta uu qabo oo la-aanteed aan reerka sinaba u dhaqmi karin barbarkeeda haddii ay ka liicdo waa ba iyo hoog iyo bakayla qalayn qoyskaas oo sidaasi ku baabaa waxaa habboon inaan xusuusanno hawraartii ahayd ninkii jiilaalka waa u dagaal hadbana kii ay oorida u heeliso ayaa adkaada astaamaha ay leeyihiin dartood howlaha wax badbaadinta ee xilliga abaarta waa qaar aan iskuladid ku geli karin oo aan maalinna nasasho ogolayn waayeelka reerka ayaa midba midka kale farta ku goda si eedda wixii baasamay uu qof walba isaga fogeeyo dabeecadda deegaankeeda ayaa soomaalidii reer miyiga ahayd waxay bartay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha sida meelaha dhulka ugu daaqa wanaagsan ee geela lo-da iyo adhiga wuron iyo ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo xagga taranka bilaha sanadka kuwa ugu habboon ay tahay iduhu inay rimaan waxay waaye aragnimadu bartay inay nugul yihiinoo roobka suququlka iyo abaarta dheeraatay toona aanay u adkeysan karin kolkaasoo iyagii neelahuba ay tarab tarab u laadaan sheekadan soo socota haddaba waxay ka dhacday magaalada berbera
1880kii muddo haatan laga joogo in ka badan 130 sannadood. iyadoo abaar kululi ay gey ku hayso ayay idihii waxay u dhaleen qoys reer berbera ahaa. xilliga abaartuna waxay ahayd in la kala ilaaliyo, waxay ahayd cir qaawan, dhul seeman iyo dayr baaqsatay. dabadeedna siday maalin ballax uga bakhtiyeysay, sabeyn markaa curatay siday ugu dhimanaysay, sidii xoolihii guud ahaan tarab ay ugu laanayeen, ayay subaxdii dambe qoyskii xero madhan ka soo agtoosay, xero aan neef madax madow ka muuqan. maalintaas bay afadii reerka dhab u calaacashay, way balaahooto way barooratay. kolkaas bay odaygii reerkiis ku rogtay, ciilkii cadhadii haysay bay isagii kula dul dhacday. dhibka reerka soo gaadhay bay isaga dhammaantii dusha ka saartay. waxay ku eedeysay inuu isagu idaha isku ladhay, inuu gugii hore sumalka ku sii daayay halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wananka qooqay uu xamilka u geejiyo. hase ahaatee odaygii reerka canaantaasi kulul ma garowsan. wuxuu u qaatay gardarro aan geedna loogu soo gaban, maag aan qabanoo ay afada naagtiisu ay kula soo kuftay. nin gabyaha buu haye wuxuu yeelay maalintaas oo kale raggii la midka ahaa wixii ay yeeli jireen. wuu gebiyey, wuxuu tiri tix uu ku garnoqsaday, eedda ay ooridiis u haysana uu isaga delfiyey. laba doodood uu eeddaasi isaga daafacayo ayuu gabay ku soo qaaday. wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababtii dhammaadka toona lahayn ee waagii baryada afadaysu la dultaagan tahay. wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso, maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan, nin la tooha awr hayina oo agab iyo wixii kaloo la saaraba la gurguurta. kaasoo kalena aayar baa la horkacaye xadhigga laguma soo jeedo. wuxuu sheegayaa inaysan cabashadeeda gar ahayn, taasoo u soo daliishaday anfacada hilibkii caanahaba leh ay iyadu haysato, halka ummadda badankeedu ay abaartu diiratay. waxa ka maqan oo ay hibanayso ayuu garan waayey. waxaase la yaab ahayd dadkii ay abaartaasi sida xun u saamaysay inuu ku soo daray master hand oo soomaalidu ay handhar u taqin, kaasoo ahaa barasaabkii ugu horeeyey ee gumaysiga ingiriisiga usoo magacaabay magaalada berbera. qaybta labaad ee dooda waa su-aal uu afadiisa kaga naxsaday, su-aal la yaab leh oo aanay filin. wuxuu weydiiyey, naa ina hebeley waadiga idaha inaga dabargo-ayay haystee kol iyo baarqaba duunyada aynu dhaqanno awrtii ugu xoogga weyneyd, haddii ay abaartani ka adkaatay bal waa yaabee yaad iyadana ku eedeen, maana awrtaana sumalo ku sii daayay. ugu dambaystii afadaysay dumarka kale ee qaraabada ahaa wuxuu gabyaagu xusuusinayaa idaha loo haystaa hagarli-idii uu weligiiba ku dhaqi jiray. maantana waxaa dhacay abaarta ayaa u sababe waa gardarro in isaga lagu maago oo wanaaggii uu reerkiisu hayay abaalka dhac looga dhigo. wuxuu yidhi, naahoy habeen iyo dharaar hadalka guudkayga halkaan meesha qaban xaajadaad igu huruufayso, hayin awr ah lama layli karo hama kuu sidee, waxaa hoggaanka lagu soo dhuftaa haaruflaha qaaline, harka saaxil hoosada berbera iyaad ka hirqataadhaye, hadweys baad aroortii cuntaa
oo habaqsataaheene waan kugu hallaabay maxaa tibatadood weeday isxaaqa kii hodan ahaa waa halcanayaaye caligeri ma haybsado fardaha hebeeladoodii hub ma qaato maxamuud garaad hanadadeesiye heeliya cayaar kama tuman harada caymede habeenka ma casheeyaan guryahii hibadu saareyde bararkad kii haweysnaan jiriyo hagarba caydhowye loo jirkii hambada weyn lahaa dhiil ma haynsadee habeen laguma dhaxo nimanka nuux kubay hawaaraane handharna u tallaab sabanka dhacay hani goygiye daaroodka haaraha ku yaal waa hiftaaweliye afartii isaaq kama hadline haariyaa dhacaye arlaba haybeyo maanta waa holac khamiisad haddii awriyo waad lagu ogaa heeriinuu qaado aasuu wada habsaday hilimadii laga hayaamayey oo uuso iyo hilibba gabay kaanayaa u hayey waataan horseedku ugu tegay hilinkii dheeraaye waataan hor joogoon ku furay hogob caleyn weyne waataan xeryaha u hiirgesho heer maan dhigine waataan hurdaye maanaa heensatada keenay muxuu dumar kuwii hiifayaa hagarta maanaa leh markaaynu maansada soomaalidu ku hurgalno waxaynu ogaanaynaa tilmaantu inay tahay ujeediskeedu taagan oo la mid a ujeedooyinka waaweyn ee ay hal abuuradii hore ka maansoon jireen welina ay ka maansoodaan waxa dhaxalka maanso aynu leenahay ku badan tilmaanta geela ta fardaha ta goobaha dagaalka ta quruxda dumarka dhulka iyo cimilada iyo tilmaanta dadka iyo dabeecada raggii haddaba wax tilmaamidda baalka dheer ku gashaday waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee ismaaciil mire wuxuu ahaa gabyaa filosof ah oo agaarkiisa dhaqdhaqaaqa nooleedee ka jira iyo wax alle iyo wixii kale ka socdaba dhab ugu fiirsada dabadeedna tiixihiisa macaankii murtida midhana bulshadiisuu soo gudbiya si kastaba ha ahaatee ifafaalayaashii faraha badnaa ee ismaaciil mire uu maasooyinkiisa ku tilmaamay waxaa ka mid ahayd abaar dalka ka dhacday gaar ahaan gobollada waqooyi sanadkii 1951 waxaa isxigsaday jiilaal dheeraaday iyo gugii la sugayey oo isna dhibcihiisii la waayey waa gugii siiga casee ay u bixiyeen iyadoo ay kaldambeyd tahay oo aad loo niyad xun yahay hayeeshee deeqdii baan laga quusan ayaa galabtii dambe waxa wada socdaalay ismaaciil miro markaa daaha iyo nin ay hilba qaraab ahay haddii ay cabaar socdeen ayaa waxa dareenkoodii jiitay shimbirka guuguulaha lagu magacaabo oo intuu geed dheer fiinta uga baxay si oohin la moodo u ciyaaya afkana aan isku darin kadib ayay ismaaciil la noqotay waxa dhacay dadkii dunyadiiba geesaha u dhigay in guuguulahana soo gaadheen sidaasna uu la baroornayo kolkaas buu intuu isagii ku halqabsaday oo sidii qof af soomaaliga yaqaan ula hadlay wuxuu u sheegay tiyaalkuu qabo in lala wadaago sidaa awgeedna ay oohintiisu tahay nafjeclaysi aan garawshiya lahayn wuxuu siinayaa tusaalooyin ay ka mid yihiin geeli xoolaha ugu adkaysiga badnaa oo weed la socon waaye iyo geeljirihii oo gaajo awgeed tuulooyinka nafta kula cararay wuxuu kula talinayaa inuu ku samro nooloo idili dhibaatooyinka ay abaarta ku hayso gaar ahaan dugaagga dabjoogtii duurjoogtaba sida gumburigii biciidkii garanuugtii goodirkii dawacooyinkii
shabeelkii lo'-dii adhaygii gammaankii iyo shimbirihii jaad ay ahaadaan. waxaase xiise leh inuu gabay ku xusay laba noole oo inkastoo dhibaatooyinka abaarta ay inta kale la qabeen uu iyagu bac kale u dheeraa. waa shabeelkii oo nag laga dhigay markii haragiisii laga ganacsaday, iyo ayixii oo intaa daaqii loo sumeeyey ku baaba'ay, taasoo aanay soomaalidu horu aqoonin. ismaaciil qudhiisana uu la yaabanaa. wuxuu yidhi guuguulihiiow haddaad guguwooyeyso, haddaad mooday keliga inuu gubay jiilaalka, ama aad gabooyaha ku madhan gamaa la diidayso, ay goxoshaaweed ilmadu kaaga gobolaysay. abaar gaagmareebaa dhacday gaadamoo kale, giddigood addoommaha waxaa gaadhay saban weyne. gartaa maaha keliga inaad gaar u cabataye, guumays cirale baan ahaye war aan ku gaadhsiiyo. geeli adduunku waadka gobollo weydooye, golihii ka kicii waa raggii gaag lahaan jiray. tuuladu ilgabadlaynaya gobol barbaarkii, hadduu timirtan goob dhigila jiingaday geline. ninna uma garaabeen haddaan gaadhka laga hayne. gumburigii badh baa joogsaday goray cawshii, saryankii garbaha weyn lahaa goob ka kicii waaye. waxaa goonidaaqadii habsaday gubatadii hawde, garanoogtii dayradii gaag yar baa hadhe. gobay askari geefanbaa goodirkii jaray, guunyadii jiiskii haddii kala gol waayeyne. kama guuxo aargoonihii galiga tuumode, gaadiidkii la dhaansanahayiyo geendhaygii maray. ahmiygii la goorici jiriyo gaabay adhaygii, gugii subaga laga dhoobi jiray haatan gorofaadye. basaas bay timihii kala goyeen gaaridii dumare. garaad faarax iyo maxamuud garaad ma laha gamaankii, neefka ma gurxamo dooxadii garada fiicnayde. garawey book baa haraad loogu go-ayaaye, gocondho iyo daal bay qabaan garowlaaneede. galowgii fiintii naf bay geeda la hayaane, gorgorkii dhurwaagii laftaad gala yaxamoodo. shabeelkii gabraar lagu iiley geeralan jiray, oo godadkii kama soociyaan gabanadiisiiye. hargihiisa nimankii gatayba guuldarrow sidee. ayixii geyga joogi jiray guuto lagu saariye, gubniyaha hareeraha ka galay gaariyaal wade. geedihii sun baa loogu daray geerin u badaye, wax ma galabsanine maalin baa loo guddoonsadee. gurxankii cabaadkiiyo haddaad gooha damin weydo, adigaaba lagu gaadaya gooshkan dabadeede. gaagaabso oo aamo yaan gaadh lagaa qabane. allah u naxariistee gabaygan guugulaha ayaa ugu dambeeyey gabay uu tiriyo ismaaciil mire. wuxuu dhashay 1851, wuxuuna geeriyooday allah u naxariistee 1951, isagoo ay markaasi 100kii sano ay u buuxsameen. israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego, dirta kuma afayseen. waa boqol yuhuuduye rag baabiirinahayo, barka u fiiraaye barqa lagu magaarin. israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego, dirta kuma afayseen.
وبقول يهودي تكبابيرنا يو باركو في راي برخلقو مقاري بدكما عيارين بربار دام لاي هدان مروق بوحيو استعمار قبال جرينو بيدو قراعين بدكما عيارين بربار دام لاي هدان مروق بوحيو استعمار قبال جرينو بيدو قراعين وبهالقو ما يستهو كلاباتنا انتيو بيلا ذا تشعلو مركوبات كاكولاهلو كابوغا قني يدر برككو دحقلي وبهالقو ما يستهو كلاباتنا انتيو بيلا ذا تشعلو مركوبات كاكولا كابوغا قني يدر برككو دحقلي وش ما تشوديو بيوي نبادي بارو دقيق ديو بنتغوي دوني وش ما تشوديو بيوي نبادي بارو دقيق ديو بنتغوي دوني أفريكاي إسبورو إسسو بهايستو نينكا بالو لهدنا بصر وحوب شيغو كبال ما دقا أفريكاي إسبورو إسسو بهايستو نينكا بالو لهدنا بصر وحوب شيغو كبال ما دقا إسرائيل ما بوبين عرب ما بريرين نبضكم ما بريسين بيتكي إلهيو فرحتي رسولك وحنلو بنيريو بختيكم ما دحكرين إسرائيل ما بوبين عرب ما بريرين نبضكم ما بريسين بيتكي إلهيو فرحتي رسولك وحنلو بنينيو بختيكم ما دحكرين كاركما بربوريين بليكما عيارين هدان مروق بوحيو استعمار قبال جرينون بيدو قراعين كاركما بربوريين بليكما عيارين هدان مروق بوحيو استعمار قبال جرينون بيدو قراعين وبهالقو ما يستون كلاباتنا انتيو بيلا ذا تشعلو مركوبات كاكولاهلو كابوغا قني يدر Selamat
أنتم في إيران، نحن الأقوياء، نحن الأسود، أنتم في إيران، أنتم لستم إلا احتلال، أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ بالطبع، هكذا يا أخوي، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ، أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة، أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله.